بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا قدومية آديات أياد ما سنتهاي وربحنتا كوبان هؤلاء قلاها الشعبية وسوق بصومي انتهرتها الله هدبا سي كوبان أديسي سي آديات أياد ما سنتهاي وعربا إن عن مركلة أنو مهد عليو قلاها الشعبكة فرصدا أي إسيان إن عن هور إماذو oo aniguna aan warbixin ka siiyo xaaladda guud ee dalka in badan oo kamid ah anigu og inay la socdaan haddana howlo gaar ah ay ku mashquulsan yihiin marka maadaama aniga guud ahaan aan kor ka eegayo hawsha bal xaaladda guud si kooban meesha ay marayso waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadaaladii faraha badnaa ee bariyay dhaweeto la soo galay ee ku saabsanaa arrimihii ama xagga sharci dejinta ahaa ee lagu ansixiyay sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka uu ansixiyay oo gudoomiye hadda aad tirinaysid tiradooda laguna wado hawsha kuwa kale oo badan lagu ansixinayo iyo go'aanka goluhu uu ku gaaray waqtiga inta hartay in la bixiyo juhdi dheeri ah si howlaha hor yaala dawladda Soomaaliya guud ahaan inta ugu badan ee suurtagalka ah meel loo soo gaarsiiyo golaha shacbiga guulo waaweyn ayuu ka soo gaaray arrimaha sharci dejinta waxyaabihii noo qabsoomay ee suurtagalay aad iyo aad ayay u fara badan yihiin aad iyo aadna muhiim ayay u ahaayeen laakiin haddana waxa noo dhiman inaan sii hiigsano oo aan dadejino oo inta ugu badan aan sameyn dhammaan shuruucda dalka waa wada muhiim sharci aan muhiim ahayn lamaba sameyn lahayn mana jiri lahayn laakiin haddana markii sharciyada sameyntooda ama hindisayaashooda hor yaalaan ay farabataan inaan kala xulanno oo kee la hormarina kee lagu xijina in la yiraahdo hortabiski iyo shintriska hadda aad ka hadlaysay waaye waana arrin aad iyo aad muhiim u ah sharciyada muhiimka aad iyo aad u ah oo annaguna howlo badan oo qabsoomi lahaay oo caqabad ugu jirto mujtamaca Soomaaliga ana maanta uu dareemayo howlahaasi in baahi degdeg ah loo qabo in reformkoodii ama hagaajintoodii ama muxuu ahaay dhameystirkoodii la qabta waxa kamid ah sharciga adeega garsoorka oo systemkeena garsoorka ah ee jira ee ka yimiday xilligii ku meel gaarka ay ka yimiday inaan waafajino duruufaha cusub ee dalka maanta ka jira iyo nidaamka ummadaan u balqaadna ee ahay garsoor madax bannaan oo sharci ku salaysan in aan maxaa sameeyno ummadda u dhaxeeyo sharcigii waa la soo sameeyay lagu dhisayay garsoorka baarlamaanka soo ansixiyay wasaaradii ay khusaysanay ayadoo raacay sharcigaas ay iyo xukuumadaba ay soo mareen wadiiqadii ku haboonayd intii marka noo suurtagal ahayd oo la qaban karay waa soo qabanay inta dhimanna waan qaban doonaa sharcigaasi aad iyo aad ayuu muhiim noogu yahay sharciga la dagaalanka argagixisada waa laga yaabaa dadka qaarkiis magacaasi in ay u arkaan magac sax inaanu ahayn laakiin muhiim nooma aha magaca loo bixinayo loo bixiyo laakiin nidaam sharciyeed iyo awood sharciyeed oo maxaan ku yiraahdaa hay'adaha garsoorku ay haystaan oo hay'adaha amnigu ay haystaan oo sharci dugsan oo dagaalkaas aan ku jirna ee cadawgaas aad u ballaaran aan la dagaalamayna lagu la dagaalamo si sharciyeysan waa loo baahan yahay wax badan oo arrimaheena amniga iyo dagaalka noocaas dib u dhac oo ku jiray waxa sabab u ah in qaanuunkii lagu la dagaalamayay dambiilayaasha noocaas ah iyo nidaamkii xeereed ee xeerinayay sida ay u dhaqmayaan hay'adaha ku jira dagaalkaasi ama hay'adaha ka shaqeynaya wixii dabrayay oo xeerinayay iyo wixii awood siinay wax u ogolaanayay intaba way naga dhiman yihiin inta sharcigaasi u dhiman yahay waxaan rabaa golaha shacbiga sharafta leh inaan u sheego dad badan oo qaali ah ayaa argagixisadu naga dishay muddadii aan soo dhaafnay shacbi badan oo aan dambi lahaynna dhibaato gaartay laakiin haddana hay'adaha amniga iyo dawladda guud ahaanteedba hay'adaheeda inkastoo dadaal aan caadi ahayn iyo duruufo aan caadi ahayn lagu dadaalay
laakiin haddana maqnaanshaha sharcigaasi wax badan oo badan oo la maqan yahay maqnaanshaha sharcigaasi wuxuu nagala maqan yahay kaalmo caalami aan heli lahayn uu nagala maqan yahay لأن الدجال كنوعان الدجال عادي أما هذا دجال خاص أو جار أو هاي تبقى آليات جار هو أديك سدولية هاي طبيعي آليات كي وعقبض ما يقول نقضي شرع جاس مقبتين أود إن لجو سيوايو جرجار كأما كلمة دي أنا بانين إنه كهيل وين قلب بدنا طلبنا يلا كاني إنه يالو أو نلاقة هاي نلقو رجل لا شرع جام حق هاي ولي إذا كم مكان آدي أيام برلمان كفترة وقعد سنة يا sharcigaasi in la dardar geliyo lana meel mariyo sharciga hal la akhriyo wixii dadka Soomaaliyeed xad gudub ku ah wixii aan haboonayn wixii qaanuun kale dalka ka jira xad gudub ku ah wixii haybada iyo sharafta iyo karaamada ummadda iyo dalka dawladnimada muxuu ahay dib ku ah hal laga bixiyo hal la akhriyo wixii aan ku haboonayn duruufaheena maanta dadkeena ay ku sugan yihiin waa laga reebaa waxa la kan maanta maalintiisa ma ah kii meeshii bedel u baan hal la bedel ماشي محو وحكم مقال لو كردي لا لو كردي وحكو زائد هذي كجيران ها laga reebo laakiin aad waxaan hoos ugu xariiqayaa sharcigaasi in uu hay'adaheena amniga iyo garsoorka gacmaha inay ka xiran yihiin meelo badan oo dagaalka ay ka gali kareen inay gacmaha ka xiran yihiin qof hal gacan laga xiray oo hal gacan ku dagaalan la yiri oo kale inay maxuu ahay ay la mid yihiin muhiimadda sharcigu uu leeyahay waa midaas qaanuunka maanta ka jiraay ninka maxaan ku iraahday argagixisada boqolka qofood ee Soomaalida abriyada ah ee meel jooga dilay maanta waxaan ku qaadnaa qaanuunka lagu qaado ninka tooray qof ku dhufto qaanuunka loo cuskada asigan intaan ka ahayn sharciyada islaamka iyo aayaadka quraan kariimka ee lagu dabaqo xukunkaas meesha maxkamadu wali ay ka nool yihiin waa halkaas maxkamadaha gaarka ee qaada maxaan ku iraahdaa dunuubta argagixisada marka sharcigaasi waa aad iyo aad ayaan hoos ugu xariiqayaa baarlamaanka federaalka inuu muhiimad saaro inkastoo shuruucdu dhan ay wada muhiim yihiin soo haray sharciga isgaarsiinta مثلا soo qaadanaya shuruucdu kulli waa muhiim sharciga isgaarsiinta aad iyo aad u muhiim loogu yahay wuxuu daafacayaa oo ilaalinayaa danaha shirkadaha isgaarsiinta wuxuu ku waajibinayaa xuquuqda wadankan iyo ummadan ay ku leedahay wuxuu ka ilaalinayaa in dibadda inta looga soo duulo wax badan maxaan ku raadayay lagu joor furo ama la waxay wuxuu ka ilaalinayaa hay'adaha dawladda iyo saraakiisha dawladdu in ay siday doonaan ula dhaqmaan oo ay abuse gareeyaan ka ilaalinaya dhinac kastaba waajibaadka iyo xuquuqda ayuu qeexaya haddii asaguna sidoo kale sharci kasta adika ayaa la idin hor keenay waxa la idin hor keenay maadaama wakiiladii shacabka aad tihiin wixii dhib ku ah shacabka inaad ka saartaan ka ilaalisaan wixii maxaan ku iraahday shacabka u dan ah oo ka maqan aad ku dartaan oo aad dhahdaan waxaana ka maqan ha lagu daro sharcigaas isaguna sidoo kale ayaan hoosta ka xariiqi lahaa golaha shacabka sharafta badan in ay asaguna ay ilgaar siiyaan oo ay dadajiyaan intii la dadaji karo muddo dheer ayuu nala yaalaa sharcigaas sharciga lagu dhisay maxkamadda dastuuriga waa muhiim dalka iyo dadka iyo dastuurka iyo waxa dhamay muhiim u tahay isqabqabsi badan qof walba sidoo doono oo dastuurka uu sharaxdo qof walba sidoo doono iyo meeshuu doono kala dhaxo waxa soo dhan ayaan kaga badbaadaynaa siyaasadda dalka ma dhismi karto mana hagaagi karto haddii aanay jirin cid awood sharci u leh in ay turjumto dastuurka ay dhahdo maya saan ma ahna waa sida oo kama dambeys uu yahay muxuu ahay hadalkeeda iyo go'aankeeda uu kama dambeys marka maxkamadda dastuuriga ayaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad muhiimka noogu ah guddiga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka laba muhiimadood oo waaweyn oo guddigan leeyahay guddi ahaantiisa jiritaankiisu muhiim u yahay cid madax bannaan oo xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida iyo bini aadamka kale ee Soomaaliya joogan xataa Soomaaligaba aan ahayn xuquuqdooda asaasiga ah bini aadamnimo cid ilaaliso oo ka madax bannaan hay'adaha kale ee faraha badan ee dawladda waa loo baahan yahay waa muhiimadaas waa leeyahay guddiga muhiimadda kale uu leeyahay waxay tahay waxa uu qayb ka yahay dhismaha adeega garsoorka oo qayb ka yahay oo afarta xubnood
oo xafiiska ay joogaan awgood adeega garsoorka uga mid noqonayay oo ka mid yahay muxuu ay gudoomiyihiisa marka ilaa guddigan la dhiso oo guddiga structure-kiisa uu dhismaayo guddigeena adeega garsoorka wuxuu baa ka dhiman laakiin wuu sii shaqeyn karaa guddiga adeega garsoorka marka muhiimadaas labadaas muhiimadood ayuu guddigan inoo leeyahay asagana in lagu daro ayaan soo jeedinayaa kuwa hortabinta leh oo maxaan ku iraadaa muhiimada la saarayo winahaasa ka mid ah maxkamadda dastuurka iyo guddiga adeega garsoorka labaduba waxay muhiim u waxaan leeyahay guddiga madaxa bannaan guddiga adeega garsoorka ayay muhiim u yihiin dhismihiisa iyo shaqayntiisa afartii xafiis oo xafiis ahaan guddiga uga mid noqonaya laba waa jirtaa labadii kalena waa kuwaana waxaa la ii sheegay in xoogaa ay doodo ka jirta arrinta ku saabsan garyaqaanka guud iyo xeer ilaaliyaha guud iyo qaabkiisa laakiin waxaan qabaa mushkiladda labadaas xafiis ka dhex jirtaahi waa mushkilad labada xafiis ka dhex jirta oo in la kala qeexo oo la kala caddeeyo u baahan laakiin inay caqabad ku noqoto ma aha samaynta guddiga adeega garsoorka labada hal qof waaye waxaa labadaas xafiis isku haystaan oo guddiga adeega garsoorka ka mid noqon karo xeer ilaaliyaha guud garyaqaanka guud dastuurka kansaana ku qoran waxaasi horta koo waxyaabihii maxkamadda dastuurka ay naga xalli lahayd waaye laakiin haddii aanay jirin annaga siyaabo badan oo kale u xalli karnaa jirna waa xallinaynaa laakiin macnaheedu ma aha in xafiiskaasi xoogaa mugdi iyo madmadow ka jira awgeed golihii adeega garsoorka ma socon karaan maaha sideedabana dadka waa dad xafiisyada ay joogaan guddiga uga mid noqonaya maanta uu ka mid yahay bari xafiiskaas qofkii jooga muxuu ahay wiil iyo gabar ayaa ka mid noqonaya xafiiska ku jooga ex officio waxa afka qalaad lagu yiraahdo ku jooga ma aha muxuu ahay laakiin shantan xubnoodoo kale waa shanta xubnoodoo kale oo maxaan ku raadaay baarlamaanku muhiimadiisa ansixintiisa ee la keenayo oo maxaan ku raad ku salaysan shan maadaama iyo qaabka ay ku salaysiin oo aad garanaysaan marka xafiisyadii way jiraan haddii xeer ilaalintu ay tahay mid ka qayb galaysan xeer ilaaliyihii guud waa jooga haddii ay noqoto inuu garyaqaanka guud yahayna garyaqaanka guud waa jooga kala saaristooda iyo samaynta guddiga adeega garsoorka waxaan qabaa ayaan isaga keen xidhmin aan kala hagaajino aanan waxayna waan leenahay awoodii iyo micnihii iyo sidii aan ku kala habaysan karnay arrintaas ayadana waxaan rabaa inaan mar kale hoosta ka xariiqo kuwaas waxaan u soo qaaday mithaal ahaanan u soo qaaday laakiin sharciyadu dhammaan waa muhiim waana badan yihiin aad iyo aad ayaan idinkugu bogaadinayaa ugana mahadcelinayaa sida hadda gudoomiyaha warbixintiisa ku jirtay waqti dheeri ah iyo fursadihii fasaxa iyo wixii oo dhan inaad u hurteen in muxuu ahaay sharci dejinta dalkaani inta ugu suurtagal oo hawsud intaan ka gaarsiin karno suurtagala xilliga mandatekeena intaan u dhammaanin inaan meel marino wixii aanan suubi karin oon aragnane haddana sidii aan u suubi karna iyo waqtiga aan suubi karna ka ballamaynaa oo aan iskaga afgaranayna ayadana dib gaarana kama jiro haddii aan arrimaha baarlamaanka intaas uga baxo oo aan u imaado arrimaha siyaasadda Soomaaliya dal caadi ah ma aha dal caadi ah oo dalalka adduunka ku yaalo oo nidaamkoodii iyo xeerarkoodii iyo wuxoodii dhan ay u dhan yihiin ma aha waa dal hadda dhismayo wuxuu ku dhismayaa nidaam cusub sidoo awal u dhisnaa jira xataa uma dhismayo dalkaani waagii dawladda ahay nidaamkii dawladnimada oo ku jiray oo muddadii 30 sano ahayd ee dawladda aan ku ahayn dawladda waxaan dooranay nidaam ka duwan waxaan dooranay nidaamka federaalka aan dooranay waxaan dooranay nidaamka dimuqraadiyadda baahsan iyo talada muxuu ahay loo wada dhan yahay baahsan inaan marka nidaamkaas cusub aan dooranay shuruucdiisii iyo muxuu ahay aaliyaadkii u baahnaayo dhan iyo qaabaalkii siyaasaadkii wixii dhan inaan dejinaana laga rabaa marka waa hadda la aduudaya waa annaga oo dal cusub dhisayno kale in kasta oo qawaaniintii hore oo noo jirtay in badan oo kamid ah ay haddaba noo shaqeyn doonaan mustaqbalka oo ay yihiin qawaaniin sax ah haddana nidaamkan aan dooranaya wuxuu nafarayaa inaan qawaaniin gaar ah oo nidaamkaas lahana qaadi karta aan keenno maanta si wixii aan doorano siyaasad ahaan dalka federaal aan ka dhignaa dhahnay qawaaniinta u baahan yahay waa maxay waa sidaan siyaasaadku u baahan yahay waa maxay waa sidaan waa inaan la nimaado waxaan dooranay inaan dimuqraadi ahaano xukunku baahsanaado taladu meerta ay noqoto nidaamkii adeegii wixii waa inaan la nimaado inta aan ku jirno marka mas'aladu waxay tahay inta aan ku jirno wadadaas aan nidaamkii iyo shuruucdii iyo wixii oo dhan aan u adeegin meel iska fafadhimayna mana dhimanin oo ma dhinsanin waa noolnahay
ummad jirtaanna caalamkan ka jirnaa mushkiladana haystaa waa mushkilada dowladnimada iyo siyaasadda laakiin qaranimad ahaan dad jiraanna adduunkan wax la wadaagna adduunku uu noo baahan yahay annaguna waa u baahannahay annagu marka dhaxdeena inaan jiritaankaas adduunkuna uu noo baahan yahay annaguna u baahannahay dadkeenuna ay adeeg u baahan yihiin inaan ka cajisna maaha li'anna qaanuunkaasaana weli samaysan kaasaa weli naga maqan kana muxuu ahay weli aan noo habaysnayn waxaanan isla fahmin meeshaanan weli ka heshiin daraaddeed in aan u fadhino maaha waa soconaynaa maxaan ku soconaynaa wada tashi inaan wada tashanno ayaan ku soconaynaa maxaan ku soconaynaa inaan isku dul qaadanaa ku soconaynaa oo aan ognahay waxyaabaha naga maqan culaysyadana saaran baahida dadkeenna uu qabo aan ka jawaabayna awgeed yaan ku soconaynaa inaan dulqaad u yeelanno marka oo aanan wax ugu fiican mar walba oo aanan annaguna markaas gacanta noogu jirin in aanan ku hamiyin oo aanan ku dhaganaanin laakiin aan wada tashanno war waxaani waa naga maqan yihiin haye see uga dhaqannaa inta aan ka helayno aaliyadii ama tuulkii ama qawaaniintii saxda ahayd ee ku habboonayd inta aan ka helayno sidee u dhaqmaynaa waa inaan ka ballanaa un dhahaa muddadaas waxaan u dhaqmaynaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan kalsooni abuur dheeriyahan u baahannahay inaan iskalsooni gelino isdhegaysano isu dulqaadanno carada xanaaqa kelmadaha adag warka xanafta leh fara isu fiiqfiiqa marna nama saacidayaan waxbana naguma soo kordhinayaan cabsida waa sidoo kale ayadan haddaan maanta oo dhan kaa cabsado oo aan iraahdo baarlamaankii 10 xildhibaana xagga ku shoori haddii la yiraahdo oo talow maxay soo wadaan balaayada ay soo wadaan waa maxaa haddaan dhihi tago oon cabsi meel aan anigu la fariisto oo idinku haddii muxuu ahay war odagii madaxweynaha lagama warqabo lamana arka halkaas ku jira muxuu soo wadaa talow maxaa soo damacsan yahay balaayada soo wada maxay tahay aad waa uun dee meeshaasaan joogina kalsooni inaan isku qabno dowladnimaa naga dhexayso mas-uuliyaddaa naga dhexayso dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladdu hay-ad walba hay-adda kale waa inay ku kalsoonta wax hadday ka qabtana sida ugu nidaamsan ugu muxuu ahaay xadaariga ah ee suurtagalka ah ee ugu gudbi karto inaan raadino jawi wada ogolaanshiyo inaan wax isla ogolaano intii suurtagal ah dadka ugu badan ee suurtagala talada inay ka qayb galaan waxna isla ogolaadaan inta ugu badan haddii laakiin wax la isla ogolaan waayo hadda sayalna waxbaan isla ogolaan weyne aan isii qiblayno waa iska dhimano ma aha haddii wax la isla ogolaan waayo ciddii ayadu ka tanasushay awoodihii ay muxuu ahay ku magacaawneed ama dadku u aaminsanaayeen inay leedahay ee talada dadka soo dhex dhigtay ee madaxtooyada leh ee xukuumadda leh ee baarlamaanka leh ee taladii soo qaadee dadka intiisa badan taladu ha gaartay yiri yaa ku qasbanoo mas-uuliyadda hadhow lama wadaag mas-uuliyadda guusha waa la wada wadaagaa laakiin mas-uuliyadda dhibaato markay timaado ama fashil yimaado lama wadaago cidda ay ku dhacayso qawaaniin hebelaa loo baahnaay waana la dhaqaaji waaye dastuuraa loo baahnaay nooma samaysna muxuu u samaysmi waaye mas-uuliyadihiisa dadka kala duwan ay leedahay gaari laakiin ayaguna maxay samaynayaan inay dadka kala tashadaan war dastuurkii waa saan daraafkii waa kana qodobkan waa saan kan ha laga hadlo dadka isku badan ha loo sheego idaacadaha laga deeyo waxaan waa wixii dalka lagu dhaqi lahay dadka dalka joogo dhan ha maqleen ha ogaadeen hadday wax ka qabaan ha sheegeen hadday wax ku darayaan ha ku dareen laakiin haddii qolana xagga aado marka ugu dambeyso baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga rabaa inuu gacanta u taago u codeeyo yiraahdo maya meeshaas la marna kanan aan badankeenu kanan aqbalsanah baarlamaanka badankiisu wuxuu aqbalo macnaheedu waxay sharciyan waxay u dhigantaa shacabka Soomaaliyeed badankiisa aqbalay sharcigaas saldhigaas sharciyadeed ay leedahay go'aanka baarlamaanka uu gaariyo marka in baarlamaanku mar walba oo arrimahaasna dowladda federaalka ah waxay habaysan marka waxaas iyadoo loo waxay qaab wada tashiga lafsidiisa in la qaabeeyo oo loo yeelo la nidaamiyo u baahan yahay waxaan go'aan ku gaarnay ka dowlad ahaan xukuumad iyo maxaan ku rahaa baarlamaan iyo maxaan ku rahaa madaxtooye dhammaan iyadeen in la qaabeeyo qaabka wada tashiga oo aanu noqonin wax iska cashwaay oo si u dhaco waad ogtihiin waxaan abuurnay dowladdu madallo wada tashi laga soo bilaabo madasha hogaamiyayaasha waxaan u bixin
oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadii inay isku yimaadaan bal arrimahaas siyaasadda qaarkood annagu waxaasna ma khuseeyaan iyo ma ogin iyo nalagama tashan iyo walaxaan nalagala tashan sideena loogu xukumayaa oo mustaqbalkeena loogu go'aaminayaa iyo si aanay u dhicin wax la qarsanayo cid gaar ah oo wax gaar ah samaysanaysa ma jirtee ha la isu yimaado oo maxaan ku iraahdaa hal la wada tashaday ay madasha wada tashiga qaran ee la soo gabagabeeyay ayaan dhaweeyay waxay ahayday madal kale ayadan oo dadkoo dhan ay ku jireen oo maxaan ku iraahdaa qaybaha kala duwan ee xukuumadda baarlamaanka maxaan ku iraahdaa dawladda qaybaheeda kala duwan ay ku jireen bulshada rayidka ay ku jirtay dawlad goboleedyadu hay'adooda kala duwan xukuumadooda iyo baarlamaankooda ay ku jireen ayay ahayd meel ilaan dadka Soomaaliyeed oo dhan suurtagal maaha in hal meel la soo wada fariisiyo laakiin dadka mathalay haday dawladda dhexe tahay iyo hadii ay dawlad goboleedyadii tahay intaba in la isku keeno oo la madalooyinkaas waxaa maamulayay oo gacanta ku hayo ka shaqeynaya in ka badan 100 qof si 2 qof ah tala meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo showray iyo aan loo dhihin in ka badan 100 qof ayaa isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dawlad goboleedyada iyo bulshada rayidka iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaay madashaas wada tashiga qaran ee lahay intaas waxay ahayd waasaas maahmaadii Soomaalida ahayd gunigeed kuma soo dhamaato marka la shirayo oo badbaadiyeena dhaqankeena ah ee la isu yimaadahay reerka ama tolka meesha degan oo dhan geedka ma wada imaan karo marka laakiin dadka ka mas'uulahay intii gunigeed kuma soo dhamaato maamaada laga sameeyay Soomaalidu marka hal madal ma soo wada fariisan karto laakiin dadkii wakiilku ahaa iyo dadka fariinta gaarsiin karo meel hebel taladaas ka dhacday ayaa muxuu ahay la dhihi karay yaa la isugu keenay oo isu yimiday marka siyaasadeenu maanta meeshaasay maray hadii aynay jirin qawaaniintii nahagaysay waxyaabo badan oo waxaas ka mid ah waxa ku xigay aan door bidna waxay noqotay marka in la yiraahdo haye sayelna waxa la dhihi jiray sayelna qofkii yiraahdana si uu yeelo ma waaye sayelna hal yiraahdo bal dadkii talaha la weydiyo dadkana way hadleen way tashadeen markii dambana wixii laga fursan waayo oo meeshii loo badnaaday ama meeshii duruufta danta ku liftay alla wixii marka aan rabaa inaan ku celiyo dalkeena dal caadi ama ah ma barbar dhigi karno dalal kale marar badan dad badan oo doodeed arkisaayo America waxa ka jira maya Sweden saana looga dhaqmaa maya inta saana looga dhaqmaa dhahayo warun waa ku faanaan waana horumar waan wax la higsado laakiin annaga duruufo gaar ah leenahay sideedaba annaga Mareykan isku mid ma noqon karno annaga Sweden iyo annaga iyo maxaan ku raadnaa Nigeria isku mid ma noqon karno duruufahayna gaar ah leenahay laakiin duruufii gaarka ay lahaynoon annaga mutmain aan ku noqonayn laftoodii ayaa wixii aan u baahnay aanay noo samaysnayn oo aanay noo diyaarsanayn noona dhammaystirnayn marka in aan muxuu ahay wada tashiga iyo wada hadalka badina waa saas waxa maamaadi ayaa lagu dabaqmayso ahayd maxaa suurooba ka roon wax badan oo qurux badan oo aan wada jecelnahay kulligan inaan aragno Soomaaliyada aan jecelnahay waa noo sawiranta waana naqaana waa Soomaaliyada san oo aan rabno Ilaahay idinkiis inaan gaarno barina laakiin si aan ku gaarno maanta waa inaan dhahnaa maxaa suurooba maanta maxaan qaban karnaa maxaa noo suurooba maanta kana noo suurooba aan sameeyno kan maanta noo suuroobina bariyo noo suuroobi doona waa sameyn doona waa jaranjaro maxaan ku raadahay marba talaabo la korayo marka aan mabda'aas maxaa suurooba ka roon ah aan qaadano oo mar walba wixii noo suurooba ma aha wixii wax ugu fiicnay ma aha wax kasto maanta haysanahay wixii wax ugu fiicnay ma aha guri hadii la dhisiyo darbiyadiisa iyo dhulkiisa wixiisu ma qurux badna waa kala dhiman tahay waxaan ku jirnaa waa waxaas guri dhamaaday oo qurux badan oo rinjiyeysan hadii aan jeclaan lahayn waa kan aan u soconay maanta dhiiqada iyo dhaxyaalka iyo maxaan ku iraahday yaanayna dhibin aan u dul qaadano gurigaasi hadii aan dhiiqadaas aan laga bilaabin guri qurxan ma yimaadee gurigeena qurxan barru imaanaya hadii alla yiraahdo wadadiisina waa hayna hadii aan inta uga baxo arimaha siyaasadda aan ku soo gabagabeeyo hiigsiga 2016 iyo mashruuci muxuu ahay maalin weed la waday baarlamaanka federaalka ah waxaan rabaa inaan marqaati u qabsado gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta hortiina fadhiya
iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo hadda aan nala joogin oo naga maqan muxuu ahay gudoomiye mahad tal waa fadhiyeen meeshii go'aanka lagu gaaray tala kasta oo la soo gaara baarlamaanka la keena si ay sharciyad u yeelato waa fadhiyeen gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka waa fadhiyeen gudoomiyaha inuu marqaati kacana waa jeclaan lahaa waa la isku qabsaday waa laga dooday dadkii baaba taladii loo geeyo Soomaaliya hadashay maxaa baarlamaanka loogu soo celinayaa meel dheer ay doodu soo martay markii dambe go'aan cada lagu gaaray wax kasta oo la rabo in loogu gudbo mandate-ka dambe in baarlamaanka si sharciyad ay u yeelato oo waxaan sameeynaynaa maadaama qawaaniin hore jirtay oo ku salaysanayna aanay jirin oo wada tashi ay ku timiday si ay sharciyad u heshahay waa in baarlamaanka la geeyaa oo laga sharciyeeyaa maalin cada la isku raacay hadda wali laga ma noqon laakiin waxaan aan aad iyo aad xogaa walwal iglisay xildhibaano badan oo aad uga walwalsan arintaas inaan arkay annagu waxa aan ka shaqeynaynaa dawladnimada sharciyaday dugsantahay mid u degan mid ay hadda degsato mid ay isku garato iyo loo baahan yahay cid baarlamaanka dhinaciisa wada inta ka furata mari kartaa ma jirto xildhibaanadu waxaan rabaa kalsoonidaas inay qabaan mas'uuliyadana wada saaran wixii annagu aan soo qaabeynay oo xukuumadda ay soo qaabeysay ay u aragtay maanta wixii Soomaaliya u shaqeyn karay hadday intay soo qaado baarlamaanka hor keento baarlamaanku uu diido hadda mas'uuliyadda markaas baarlamaanka qaadanayo wixii kale oo noo shaqeyn lahaa asiga laga rabaa oona la isku raaci lahaa la isku ayidi lahaa la isku dabageli lahaa waa qabaa shalayna waa wada tashanay markaan wada tashanay wax isku raacnayna waad garan kartaa goobjoogna waad u ahaydeen haybadda iyo sharafta aan ku yeelanay inaan wax isku raacno waxa aan shalay isku raacnayna tanaasul la'aan iyo muxuu ahay isjijiid la'aan kuma ayan imaanin waan wada tashanay barnaamij ayile kan suurtagal ma aha kanna ma anfacayo kanna sidiisa meesha laga bixiyo hadda wixii lagu daawoobayaan wada qaadanay wax badan oo qaban karnay oo aan dadka qaarkiisu arkayeen inay wixii wax ugu fiicnay ama wax ugu fiican noo si dhaweey kareeyeen yaa laga tanaasulay shalayba waad ogtiin 10 qodob iyo 10 magaciisi wax la egaa 2 qodob oo lagu soo koobay sidaas baarlamaanku raali ku yahay la yiraahdo la yeelan dhaano sidoo baarlamaanku raali ku yahay xildhibaanada sharafta leh maantana baarlamaanka federaalka ah oo repository of the sovereignty wax afka qalaad lagu yiraahdo qarannimadu gundhigeeda meesha awaay baarlamaanka lama dhinac maraayo lamana dhinac mari karo isagana mas'uuliyadiisa inuu qaato oo wax walba waxa suurtagalka maanta noo shaqeey karo inuu waaqici inta noqdo oo go'aan ku gaara laga raba waxa laga rajaynayo oo laga sugayo baarlamaanku waa sidaas waxa ka soo haro dhan waa macna la'aan waa wax baarlamaanku ku macna beelayo xukuumaddu ku macna beelayso madaxtooyadu ku macna beelayso marka u dambeysana dawladnimada Soomaaliya ku macna beelayso wado dhamaanteen aan wax ka dheefayna aanay jirin ee macna beel waxaan aan ka qaadaynin oo ah xanta farsu fiiqa cabsida maxaan ku raashaa shakiga maxaan ku iraaday muxuu ahaay hebel waxaas waa cadiina dooyira anna waa madow yihiin aan leeyahay aad iyo aadan waxaan u codsanayaa kalsooni badan jamhuuriyadda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed adinku idin wakiishay wakaaladii oo idin wakiishay adinku yaad annagana awood nagu siiseen xukuumadana awood ku siiseen marka ma garanayo wax keeni kara walwal in la idinka maarmo ah in qof uu ku fikiri karo in baarlamaanka laga maarmo dawladnimaduna ay sii jirayso ma garanayo aniga qof inuu ku fikiri karo taas waxa barbar taalo baarlamaanka mas'uuliyadiisa inuu aad iyo aad u taxliiliyo aan caadifado emotions qofaan hebel aan muxuu ahay aanan aniga asiga arki karin hebel aan la dirsanahay hebel aan jecelahay inaanay noqonin dalka Soomaaliya inaan jeclaano ogow xildhibaan go'aan kasto aad gaartaahay ama dalka Soomaaliya ugu hiilinay ama dalka Soomaaliya uga hiilinay cid gaar uma hiili kartid waxba uma qaban kartid shakhsi gaarana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa kaliya qaranka Soomaaliyeed aad u hiilinay wixii si wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hor ugu socolahayd keenay ama ugu waa ka hiilinay lugaadka dabray waa soo wayna
mugaasa leeyahay waa tashawaayna loo taliyo kuwan halaga waxay aad iyo aad ayaan inaan ka xishoodo mar raba inaan ku faana raba aad iyo aad ayaan waqti badan iyo juhdi badan iyo dagaal badan ugu galay aniga ka madaxweyne ahaan talada Soomaaliya inay Soomaalidu yeelato oo Soomaali tashato noo kaadiya waa mahadsantihiin waxaad nala qabateen waana marka anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya wax kasta oo kala adduunyada waa noo qaban kartaa amnigaana laga saacidi karaa ciidamada loo keenay hubaana la siiyay wax kalaana la siinaa maxay sirdoonka iyo xogtiisana la siinaa intaana laga waxayna waana loo qaban karaa dib u dhiska dalka waana la kaalmeyn karaa daaraana loo dhisi karaa wadooyinkana loo dhisi karaa koronto iyo wixii biyo iyo wixii aan rabno waana loo sameyn karaa wax ugu dambeeyo qofka bini aadamka ku kaalmeynaa ku sameeyo waxa naftiisa inuu ku huro oo darada u dhinto waana naloo sameeyay hal waxa jiro oo naloo sameyn karin Soomaaliyana 25 sano la soo dhaafay halkaas waxay u dhutinaysay siyaasadda waay naloo ma sameyn karo siyaasadda annagayna jirtaa haddaan 20 sano kale 30 sano kale si qalqaloocnaanayno iyo haddaan toosino cid adduunyada korkeeda saaran oo siyaasadda noo hagaajin karto oo noo sameyn karta ay ma jirto waxa kaliya ee aan isku haysano waa siyaasadda wax walbana waxay subject u yihiin siyaasaddaas amniyaan la arkayn horumar dhaqaalaan la gaarayn muxuu ahay kaalmada caalamiga oo adduunyada diyaar noola tahanan la helayn dadkeenan karaamo iyo sharaftoodii aanay dib u soo noqonayn haddaanan siyaasadda ka heshiinin inteena gurigan ku jirta iyo inta nala midka ah maanta naga maqan nala joogin ama golo wasiir ha ku jiraan ama golo adeeg garsoor ha ku jiraan ama meel kale ha ku jiraan xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo siyaasadda nalooma sameyn karo waa waxa kaliya ee adduunyada aan inoo sameyn karin inta kale dhan waa naloo sameyn karaa waa naloo qaban karaa waa nalala qaban karaa siyaasadda nalooma sameyn karo waa inaan annaga sameynaa kuma sameyn karno wixii aan kusoo jiri jirnay iyo sidii aan usoo sameyn jirnay waayihii la soo dhaafay uma sameyn karno waa soo tijaabinay waa u sameyn weynay siyaasad reer hebel ay leeyihiin ma sameyn karno siyaasad koox gaar oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan midaba gaar leh ama si gaar maxaa u taala ma sameyn karno siyaasad Soomaaliyeed oo dhan ka wada dhaxaysa sameyn karno laakiin tii aan sheegay dib ugu noqonay siyaasaddaasi sidii ugu fiicneed maanta ma dib hal mar ma soo siin karno inaan dhisno oon hoos ka bilaawno oon tartiib u dhisno maalin walba bulkeetu ku sii darno ilaa guriga kaamil ah oo dhameystiran aan ka helno guri haddii la dhisayna waa horena waa taan waa la dhiiqoobayaa dhagaxa kugu soo dhacayo musmaara korkaaga soo haadayo waa lagu dhaawacmaya waa la waxaynaya waana waxa aan ku jirno meeqa xildhibaan oo sharaf la Allah u naxariiste ilaahay jannadiisa firdaws ha geeyay yaa dalkan iyo beledkan lagu dilay oo sababta loo dilayna ay tahay inuu xildhibaan yahay awgeed cidna kuma duulin cid ma dhicin qof kale ma aflagaadin inuu xildhibaan yahay ummadda Soomaaliyeed qayb kamid ah ay u wakiilatay inuu wakiil uga noqdo arrimaha siyaasadda iyo sharci dejinta iyo dawladnimada loo soo wakiishay daraadeeda loo dilay waa ninkii fundiga guriga dhisay ee kor burska intuu uga soo dhacay madax uga dhacay meesha ku dhinto kala waa yani dhismaha dawladnimada keentay kuwa kale oo badanna waa naga dhimanayaan waqtigoodii uu galay ajashoodii ay timideen laakiin maalinta u dambeysay wiil iyo gabar Soomaaliyeed banaanka soo istaagayo oo heybad iyo karaamo loo sharaf loo banaanka taagan oo laga kala gabado oo leeyahay Soomaali waay ha laga leexdo waxooda yaan lagu degdegin hala dhageysto la yiraahdo ayaa imaanay haddaanan annagu marka aanan noqonin kooxda horeysa oo qiimahaas bixinaysa maalintaas ma gaarayno maalintaasina way dhowdahay ma dheera oo aad iyo aad ay noogu dhowdahay arrimaha siyaasadda marka sidaas aan rabaa inaan dareenkaas rabaa inaan idin la wadaago mar walba ogow waa maamaadii Soomaalida ahayd cidina uma qodna ceel uma qodda cidina uma maqna cidina uma maqna ceelna uma qodna siyaasadda Soomaaliya inay hagaagto qof noogu maqan ma leh isxaq lahayna iyo waxay lahayna iyo fara isku fiiq lahayna iyo muuqaal nacbaysa lahayna whatever ay tahay maxay ahayd saas hashi ninkii saas yar ama saas yar geela guga dhalayo
yaad ku tirsantahay ashi goojin weydeen muxuu ahaanta ka go'need ama aan sidan doona yeelnay dawladnimaana laga sugaa ilmaheena aan qaarkeen dibadda ula cararnay oon dibadda geynay iyo kuwa ayagu cararay ee duruufaha ka cararo iskood u cararay iyo kuwa maanta muxuu ahay si gudbaayo lama degaanka iyo badaha ee Lampedusa jasiiradda Lampedusa ku sii dhamaanaya dhamaan saas annaga saas noo soo eegayaan mas'uuliyadaas waa wada leenahay aan ku kala weynaano aan ku kala culays badnaano laakiin waa wada leenahay wayna wada gaari aakhirana ilaahay hortiisa waana lagu xisaabtamaya laana kutub jaamacan gacanta korka ka saarnay anagoo way saqabna markaasaan magaca ilaahay ku dhaaranay waana la weydiina adduunyadana sharaftaas ay ku leedahay aakhirana mas'uuliyadaas ay ku leedahay dawladnimada iyo siyaasadda nolosha waa laga yaabaa wax badan inaan khaladno laakiin anagoo dadaalayna aan khaladno haddaan anagoo dadaalayna aan khaladno ilaahay agtiisana dambi kuma lihin ummadda Soomaaliyeed horteeda kuma lihin laakiin marka aan ugu talagalno marka aan wax yaroon ka dul qaada karin oo aan ka aamusi karay ama aan balbali aan dhihi karin aan ka dul qaadan waayo ee daabkay inta qaato wixii socday aan ku dhufteen kala burburiyo taas waaye midda muxuu ahaay ee dib kale arrimihii siyaasadda marka waa sidaas waa hawl noo taalo wax badan aan ka soo qabanay noo qabsoomay noo suurto galay wax badanna way noo dhiman yihiin laakiin safarka si aan u soo gaabino arrimahaas aan u baahannahay aan u baahannahay wada tashiga arrimaha hadda ka dhawaajinay ee ahayd wada tashiga dulqaadka kalsooni dheeriya in la abuuro iyo jawi ogolaansho wadareed in la raadiyo mar walba lagu mashquulo oo aan muxuu ahay qofne in talada banaanka laga dhigo marna aan lagu darin haddaan taas intaa uga baxo aan u soo noqdo arrimaha amniga maalintii ugu horreysay dawlad noqonay annaga xilka iyo mas'uuliyadda waxaan ballan qaadnay muhiimadda koobaad ama hortabinta koobaad inay noo leeyahay amniga yani waxaan ku jirnaa dagaalkaasi dagaalada caadiga oo la yaqaanay ma ah dagaalo adduunka ku cusub oo kusoo kordhay waagaan dawladda ahayn oo deganayno nabadda ahayn waxaan maqli jirnay IRA iyo maxaan ku yiraahdaay Brigade Rosse iyo maxaan ku yiraahdaay muxuu ahay Badermanhof iyo kooxo Yurub iyo meelaha ka jira oo meelay bam ku qarxiyeen iyo meelay xagga ka dhaceen iyo walaxii dumiyeen la leeyahay laakiin anagu waxyaabo jirnay waxaan jirnay oo dawladda waaweyn waaye ma iska qabtaan oo muxuu ahay sidee dhexdooda muxuu ahay qalalaasa noocana looga wada ay foodaan dhigi jireen way soo ballaaratay argagixisadii wayna soo gashay nasiib darrada jirta waxay tahay kuwaas markay jireen argagixisada diin hebel haysata lama dhihi jirin qaarkood masiixi ahaayeen qaarkood buddhiste ahaayeen qaarkood walax kale ahaayeen lama dhihi jirin argagixisada diin hebel argagixisadeeda lama dhihi jirin annaga maanta dhibaatanaasi waxay tahay argagixisadii iyo diinteenii qiimaha badneedaa laysku lifaajinaya wax badan ay nooga dheeray taas laana diinta dhammaanteena u tacaatufeen diinteena waa jecelnahay waa ku dhalanay waa ku dhaqannaa ayadaan muxuu ahay maskaxdayna iyo caqligayna iyo waxayna dhan ku qaabaysan yihiin waa wax saas oo fiican oo hab nololeed diinteenu caqiide bas maaha si diimo badan oo adduunka ka jirahay caqiide u yihiin caqiide bas ilaahay si loo caabudaa sidaanay qabaan diimahaas laakiin annaga diinteena hab nololeed waay nolosheenna oo dhan bay ku jirtaa haddaan ganacsanaynay ku jirtaa haddaan muxuu ahay dagaalaynay ku jirtaa haddaan maxaan ku yiraahdaay aan kaalmo iyo sadaqa baxsanayno ay ku jirtaa haddaan wada dhisayno wax kasta oo qofka muslimka ah oo sameeyo oo ficil oo ku dhaqaaqay diinta islaamka waa ku jirtaa marka hab nololeedkeenii oo dhan ay ku jirtaa haddaad seexanaysid haddaad soo kacaysid haddaad suuliga galaysid haddaad ka soo baxaysid kulli diinta ra'yiga ka qabtaa waxbay kaa tiri wax aanay waxba kaa dhihin diintu sida loo helo dhibada marka diinteena sidaas marka waa nolosheenii waa in marka koox argagixisa ah oo waxaad aragti sameynay oo shilkii ugu dambeeyay ee dadka badan ku leedeen ee liido hooyo Soomaaliyeed oo cunug haysata oo cunugii markii jacdi jumti qaraxi u dhacay cunugii inta sase oo ooyay ee naaskeeda inta soo bixis cunuga naaska afka u gelisay si ugu shibiso yaa iyadii cunugii la isku dilay
markaasaa hooyada meesha laga soo qaada iyadoo naaskeeda weli caani ka da'ayaan cunugiinu afka kula jiro cunugiina uu meyd yahay adiina meyd 20 qofood in ka badan meel soo fadhisay rasaasaas loogu bilbilo loogu rushay maxaa lagu tilmaamaa ninkaas marka in lala associate gareeyo oo lala xiriiriyo diinta islaamka ee xaniifka ah sax ma aha ninka sidaas sameeyay in lala xiriiriyo oo loogu magac daro oo lala saaxiibiyo oo meel laga soo geliyo diinta islaamka sax ma aha waa argagaxiso waa tuug waa burcad Allah iyo rasuul ka furtay ummadan inuu gumaado tirtiro u soo qaatay cudur daar ma leh maskaxda laga bedelay iyo inta laga soo waxay iyo maxaan ku iraahdaa daroogan waxaas dhan waxba ka jiraan waa tuug ayaal suuq oo khaa'in ah oo Allah iyo rasuul ka furtay waa diinta islaamka aan meel ku lahayn kii marka haddaan la dagaalkiisa aan u midoobi weyn oo reserve ka qabno oo wixii shabaab lagu diriray anigana ama dhibaan aniga oo muwaadin Soomaaliyeed oo nadiif ah shabaab lala diriray de shabaabku ay ugu dhex jira xabad shabaab loo wada waa ugu dhacay intaan shabaab la igu tumo waa la xiraa laba dadkaanay ku dhex jiraan waa ku milan yihiin waa xulan yihiin waa wiilasheenii oo fasahaado xumaaday ma aha kaliya kuwa kale oo kalar laho muxuu ahaa kulli inta ku dhimatay meelo dhan fiiriya wuxuu badiyay Soomaaliya ku dhex jiraan ajnabi laakiin Soomaaliya u badiyay wiilasheenii waa ayaga loo adeegsadaa marka la isqarxina inta badan ayaga loo adeegsadaa kuwa ajnabiga xataa inta badan noloma soo diro meel kale looga aadiyo warninka sidaa ahaa la dagaalankiisa ka badbaadinta ummadda qarannimada dawladnimada inaan ku midoobi weyno xoogaa waa dhib badan tahay waxaan rabaa marka waxaan shabaaba lagula diriraa lagula tacaala haddii la yiraahdo inaan garab istaagno wixii ra'yi marka la soo hordhigo wixii khaldan oo garan karno wixii damage weyn keenayo wixii shabaabka inay si dhiirigeliyaan laga yaabo wixii shabaabka inay sympathy waxa soo dhan inaan ka reebno iska ilaalino way fiican tahay laakiin inaan mar walba aan ka dhaga nuglaano oo aan dhahno qawaaniintan iyo tuulkan iyo hay'adan iyo yani nidaamkan iyo waxaan shabaab ma lagu dagaalmaa waxaan rabnaa inaan ogaano mas'uuliyadda amniga annaga iska leh waxaan dhahnay war duruuf ciriiri aan ku jirnaa amnigana waa nagu culus yahay la kaalmeeyo waana loo yimid waana la kaalmeeyo inaan dadkaasna kaalmeynayo horta aan dhowrno bini aadam waa malaa'ig ilaahay soo dira ma khaladaad ay galayaan waxbay bi'inayaan waxbay haleynayaan in loo sheego khaladaadka ay galayaan iyo waxa ay bi'inayaan in laga hadlo loo sheego waa waajib waana sameynaa laakiin marka sameynayna inaan idaacadaha la soo istaagnaa muhiim ma aha madaxay leeyihiin nidaamay leeyihiin qaab loola hadlay leeyihiin meelo ka sii dambeeyay leeyihiin waa la hadalnaa waa u sheegnaa qoraalaan u qornaa khaladaana inta ka jiro hal la bedelo waxa laga bedelo waxa laga qabto sidaan ma aha waan dhaana kama aamuso laakiin haddana de inaan ayagiyo dhimanayo oo shabaab dilayo oo duruufaysan oo reerahoodii iyo qoysaskoodii ka soo tagay annaguna inaan xoogaa aan sii jirxumayno meesha kuma jirto laakiin wixii khaladaad ah khalad waa khalad muxuu ahaa mana laha la isuma dhaafay waa la isu sheegaya laakiin dulqaadkii aan sheegay mar walba dulqaadkii aan sheegay inaan muujino waa u baahannahay annaga marka maxaa waa dhibka amniga naga haysto amnigeena dhibka naga haysta waxa waaye duruufaha dalka ka jirana ay sababayaan amnigeena waa siyaasadaysan yahay hawlo amni ahay oo wax kala lahayn oo xirfad amni ahay yaa marmarka qaarkood siyaasad naga noqonayso inaan ka dayno intaan ka dayn karno amniga inaanan siyaasadayn aan ka leexan nimaa la soo qabtay la xiray ama shabaab uu noqona meesha shabaab loogu talagalay la geeyna ama shabaab uu noqon weyna waa la soo deynaa hay'adaha amniga waa ku kormeernaa waa ku ilaalinaa xukuumadda iyo qaybo kale oo xukuumadda ayno bulshada kamidaba dadka inaan la ciqaabin inaan la jir dilin
oo aan korkooda dhaawac loo geysan maskaxdoodana aan dhaawac loo geysan waajib waay waana ilaalinayna hadday marmarka qaarkood qalad dhacaanna mas'uuliyadda cidda iska leed yaa korka laga saaraya waa u sheegnay in aanay dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed wakiil uga ahayn in ay dadka Soomaaliyeed xadgudub lagu sameeyo nidaamka iyo qawaaniintu waxa ay nafarayaan in la sameeyo qawaaniintii qaarkeed naga maqan yahayna waan ka hadalnay laakiin waxaan rabnaa annaguna inaan ku kaalmayno wiilka Soomaaliga ah ee amniga aan u dirnay ee wadada taagan ee dhimanayo ee baabuurka lagu qarxinayo ee jidka lagu tooganayo ee gurigiisa lagu tooganayo ee meel walba la daba taagan yahay ee u bareeray inuu asoo og waxaas mas'uuliyadaas inta qaata galo jirxumo inaan ku sameeyo aflagaade inaan ku sameeyo inaanan caayin inaanan maxaan ku iraadayay eedeynin inaanan handadin madaxdiisa iyo mas'uuliyiintiisana shaq waa naxa marka uu naxana awooddo wax ku qabanaya hoos u dhacayso inaan dhiiri gelin waa dadaalaysa waa fiican tahay laakiin 1 iyo 2 iyo 3 iska hagaaji waxaana ka khaldana ka leexo meesha toosi inaan dhahno waaye dawga aan leenahay laakiin siyaasad ma ah amniga hay'ad hebel la dirsantiin ama hay'ad baarlamaanka la dirsantiin xukuumadda golaha wasiirada la dirsantiin reer hebel la dirsantiin hadii la yiraahdo waxaan ka sii dhigaynaa curyaamaan ka dhigaynaa waa curyaaminayna inuu wax qaban waayo inta fiiri baarlamaanka ama ku qabsadaa intana fiiri wasiir hebel ama xukuumadda ama ku qabsadaa inta fiiri madaxtooyada ama lagaaga soo qayliya haduu is yiraahdo curyaan noqonaya waxa ma qabanayo la fiiso ilaashana kastiyarta oo mushaarka qaadana asiga inuu isbadbaadiyo ku mashquula meesha dadka kale ilaa waa cadow haysto waa target dad cadow u yahay waa la dila tiis inuu ku mashquulo marka uu tagaale oo tii kale iska dhaaf meeshii ta kale inuu galo aan ku dheeri lahayn oo aan si ari lahayn waxyaabaha aan si gaarka ah baarlamaanka iyo dhammaan hay'adaha dawladda anigu codsanayo waxay tahay hay'adaha amniga in la kaalmeeyo aad iyo aad in loo kaalmeeyo la daba istaago dadka xiran ee la daba kacaayo in aan joojino madaxda dawladda hadana wasiir ku xigeen wasiir dawle xildhibaan madaxtooyada dadka socda ciday doonta ha ahaato nabadoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo haayo awgeed inaanay sabab u noqonin maxaa waanan hadii loo baahdana gudiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay'adaha amniga waan amrayna inay la wadaagaan dad badan oo shabaab oo la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala galay waxa leeyahay hadana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayna damaanad ama maxaan ku iraadaayay ana garanaya kan shabaab ma ah run waxa shabaab ma naqaan aniga shabaab ma aqaan waxaan aaminsanahay adinkana ma taqaaniin wiilkaaga noqon karo walaalkaaga noqon karo gabadhaada noqon karto virus cudur waay hergab gurigaaga cid doon ku dhici kara waa cudur waay dadka uu ku dhici kara ka dadka ugu jecesho ku dhici kara wacigeena amniga oo hooseeya awgeed wax badan nooga ba'oohay wax badan nooga ba'oohay dadkina dilaayay inay soo dhaxmaraan anagoo u jeedno oo ku dhaafna la saalan hebel yo ahay qofkan meesha si mar ana garanayo waa kii la socday maalin dhaweeto xildhibaan hebel kii la socday ama wasiir hebel kii la socday waa ma ana garanayo hebel oo madaxtooyada ka shaqeeyo maalin dhaweed oo la socday ka leex wacigeena hoose annaga meel amnigeeda la sugayo ma gaan tagna inaan annaga iska bilaawno waa wax si sax ah meel iskriin la dhaxmaray hadaan tago koow inaan aniga suunka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geedo aan iraado hay hala marsiyo dhaxmaro dhiiq ku noqo hay inta wax qalday bixi ku noqo laakiin hadda iskriin inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku xigeenku dhinac maro wasiir dowladda dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka jananku oo dhinac maro oo kan yaa la celina maxaa ku qancinaa ninkan ama gabadhan meesha taagan dadka Allah si imaan walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdana sidaas la yeeraa waa la marina waxa inaan annaga mithaali noqono oo mujtamacu nagu daysado waa sida kaliya waxaan aad iyo aad u codsanaa xukuumadana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka golaha shacabka qiimaha sharafta leh waxaan ka codsanaa
dad lagu daysada noqda markay timaado amniga airborka tagtay teleefankaaga suunkaaga kabtaada screenka geli dhaxmar meesha kii kale in dhahayo adkaysan wariyaa mar dhameesha mid oo shan taagayo adkaysan hadaad wariyaa mar meesha aniga xildhibaanaan ay waa soo maray mar adigana waa sida kaliya ee aan muxuu ahay kor u soo qaadi karno amnigeena maalinteeda la soo bandhigi doonaa tuhuma aad iyo aad u ballaaran wixii maalin weyd airborka ka dhacay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax kasta oo airbor casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu airborkeena leeyahay runwayga diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminalka airborka qofka markuu soo galaayo waa loo jeedaa waana record garaysan tahay laakiin technology qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo kaamirada iyo screenka iyo inta gacmo leeyihiin inta ku soo celiyaa inta dhaxmarba ku dhahayeen adiga waa ina martaa markaad meeshaas marto ku dhaha waa qofkan waa nadiif iyo nadiif ma ku dhigi kara koo wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galayna waa negligence kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaay waa dambiile labaduba dambiile waa dambigooda ha kala bata hadduu doono qofkii meesha la fadhiisiyey mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddowna shaqo ku lahayn wax meesha ka jira xataa screenka oo alaab marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalinaya hadduu xagga intuu hay balow muxuu ahay dacaasho ma aragtay baan dhaweyd meesha tacsidii ma ka qayb gashay xagga u sii jeesto oo bamkii meesha maro asaaka mas-uula lama dhahayo shaqo kuma lahayn iyo ma garanayn iyo muxuu ahay saan waay iyo cudurdaar ma leh kii ugu talagalay ee soo qaaday ee keena ee marsiiyeyna waaba mariyay waaba kaas isagu maba ka shidnaba wixii oo dhan inta badan waa dadka waa la yaqaanaa wixii waxaas ku lug lahay baaritaanka xooga u socdaa waana rajaynaynaa in maxaan ku iraahdaayey arrintaasi ay mithaali noqoto maalin walbana falalka argagixisada oo dhaca waxaa aad iyo aad uga badan kuwa la fashiliyo runtii maaha ma ku faanayo mana kaga been sheegayo mana ku dul qarinayo hay-adaha amniga yacni inta mardadabo iyo inta khiyaano iyo inta dhagar ee la fashiliyahay tiro ma laha maalin walba nimankan waa taqaanaa sida waa mobile waa dhaqaaqayaan u yidhahay mobile u yiri labo ka mid ah madaxda amniyaadkooda magaalada joogto marka la soo qabto afartanka kale joogto dhan hal subax waa bedelay waa qaaday magaalada laga bixina ninkii la soo daba joogay kii aad soo warsatay hebel sita banka hore aad dadka ugu dambeysay araggiisa lagu dhaha isla markii ku kala joogo shaqeeyo hay dagaalka hay-adaheena iyo wiilasheena gabdhaheena amniga ka shaqeeyo ku jiraan waa dagaal noocaas saas isu badbedelayo sidii biyaha saas isaga daba wareegayo jiha loo aaday iyo fronta cayiman oo laga riixo oo la isku soo noqday iyo aan lahayn waay laakiin maalin walba aqoonna waa u kordhay waayo aragnimana waa u kordhay marmaraan dhex tagaa aan fiiriyaa ama cajaladaha ay duubaan investigationka dadka waa garaacday waa tuntii si aan loo dhihin video laga duubaa interrogationka ay sameynayaan su-aalaha ay weydiinayaan dadka يعني مالين والله مالين تكتب بيسرونتي وحنكو أمانة أقوانا وساكرت وأنا نلا كالمية أقوان تعصر جاي إن بدنا كمدا وأنا هلني مرك أرنتها سبحان ربا أيضا إن أنا كسر جبهيو محوها هاي إن أن أدي وقدر نقولانه وأن أنه أن مثالي نقول هذيك وحمرك ديدنته وحمرك ديدنته وقدر وأنا وليس ما أنا قاعد كرت لكن مركا هو أركت إن الدنتا هود أديك فولنتير جريس ماشي أنت استعدت حلبانك والله حلبان وامري كمبيوتر كيسي لابتوب كان ماشي ومري سونك يبرت الواقع سي ساعدي يو تلفون كموبايل كهين جيت دمبيشي لو كريد سكرين كان الأحمر مركل هذا وقف والبقى أنا محانا هاي ديرها هاي طن ورجج بيرا ماشي ومرا وحبضني نو كردني مثالي لماذا آدي أيام عد سنة إن لا أبوريو أمنيجينا مركا وحن كسو ودي مدرر سي أو دلال يسي محن كورا هذا نية سمان يسي شرعية هرا أو دل كان نو جري أو قاركود أنا نقول دبق من emergency شروع دي أهايو دن يو محكمة دي أي لهايو شروع دا صوتن
محكمة بدبادها كاس واتي أنجوجني إلى حكومة لا جسوا براب إلى قدوميها الدقمة لا جسوا جار أودا جرتدتك يكحيل كران سدح بلودان حنا لح بلودان حنا سقال بلودان حنا ما لها قاركود ولي وحلا جبا أود إنه عاس إنه باهي لك أنا وهذا ما قبل قدي أمانك الدقمة قدي أمانك قبلك قدي أمانك قرن وحيابا بدنا أودات أو شدتك محوها هاي ما لها ضد بدني لو تعدق بدن لو جستي كم إذا أنا وما قبلنا وحاصل إنه مجران لكن وحن هذا أبورينا الدنيا وحاس ما وضع قبتها سيدا كانوا يقولون شيء الدنيا عصر قاعد ديمقراطية سيدا يقولون شيء إنه يقولون لأنه قوانين النظام إلالي أن هلان رنا سيدا أصدرات الدولة الفدرالية الصومالية وحيكشف قيوها أساسية لو هلاي قاب رسميات أمني أو قصة ليسن سياسة قيحا ما أفكر قرارات وحلو يقول هذا clear policies قصة ليسن قاب رسميات هبيسن أو قصة ليسن سياسة قرن وهشيس لجوديه لسلا أقراره سألوا سكول أقرانا ضد كنا ولا هردقة ولا جوع يجرينا ولا شيء برلمان كفدرال كانوا أنصحنا ما شاء ما كاسا لسلا ولا لسلا أقراره محوها سياسة ده بري هدي وحكي مادين وعلى ذكرت مادنا ديبالو نقنا ولا صها بين آيات قرآن ما وحرأي ده تسكو كانوا وال بري على قرحنا مركا ما أنت أذيك وحبا هذا وجود الجنان إلا ذا قاركود أصولها إن لهانا مهمة بري على قرحنا برد بلسي بدلا صارت كدبت 8 سنة كبعدها اللي بدلا مركا سياسة عط أو قيحان إيقاب رسميات قابيسن أيام ربنا إن يرونه أو لقوا قابيو أمني إنه قابيسن هذا دولة الفرالكا وحي وضع هول الله حريرة أرمى أمنية سيدا قيمين تقطرها قرن كان ومحا قطركو أسيد سبب أفكار قرارات national threat assessment محا قرن كصوماليا محا قطركو قطرها قرن كسو وجايو إن لا عيم أولي راكن وقطر قطرها كل جود أمن موضع قرار دقالة قرار سياسة قرار محوها هاي بيئة قرار وحكرة قطرهاس مركل الله وحيو والله سو عيم أولي رادو دلك قطرها دق أمان تكتاجر مدول بمركز الدولة إن السياسة كراهاتو آليات كي أو لوجو هرتجلها إن كراهاتو أمني ومركز وكمت وحابها مركز السمية كصباح وحي نقطتين إن بارس علم بارس كبعدي مركي لسوقي ما قطرها قرن علم بارس اللي بيسو سميه سياسة أمن قرن إن لا لسه مركز كصباحي مهم إن تاي سياسة مديسن وأمر قرن أما واحد اللي يعرف كقرار لقول هذا national security policy اللي يقام السياسة ده أمنية قرن الصومالي واسيد أصلي هذا إيو قاب اسمه لقرن إيو أمن وقول سيها جرن جروي يا كم مسؤولة محي إن لقرن إيو أو بوليس كأنت كعرري ميلتري حاجة كعرري أنا بس قد أنت بودي إن أنا يدعين واجبات كلا عيمن كلا وحيسن هي هايرر كلا يقانو واجبات كسبوق فليو أو الشرعية يسن إن أيجانا الله هلا يا كم إذا قبل اسمه كاس دولة دولة أي ودوا كواسا ما أنت محوها وحلا بندقي لا نسيد هاي سياسة دين رماه دبدة أو دوكومنتيجريشن أو قابيسن بوليسي فورين بوليسي وحلا يرى دل كستوليها وحابريها أنا دل لقش قيني ولا بندقي سياسة دهن إيو دولة دين كسابسن مالجرين دل كاسيد اللوجه لهاي كدي مركا هذيك عاد موتسين شرعي مالقشجة دوكومنتيا كذب إيمان سياسة الدولة مالقشجة يا كحكتة هؤلاء صار من مركز واسع دان هذا هالأرن أو محوها يقوم يمسن وقدام بينتي أنا كسوق جداد أو لا حريرة أمنية لقالها سياسة ده من أول من خصيص تاسو حيتهاي الرماها كسابسن دل يردين وربحنا دوا أركتين إن لليه هاي إن كله بقولك بس ديتن dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro da'doodu waxay ka yar tahay 35 sano qiyaas markii intuu la eg yahay dadkaasi markii la yiraahdo 80% ama 70% baan ka soo hoos u soo noqo dadku waa dadkaas intay la eg yihiin da'dooduna 35 sano ka yar tahay markii la yiraahdo yaa waaye dadkaasi waa dhalinyaradaasi xaggee jirtaa maanta dalkeena dhalinyaradaasi xaggee jirtaa
dhalinyaradaasi inta badan si toos ah iyo si dadban si sharci ah iyo si aan sharci ahayn waxay ugu nool yihiin qoriga aakaha noloshoodu waxay saaran tahay qorigaas aakaha si sharciyeysan ay u saaran tahay waa military waa booliis waa nabad sugid waa ciidan asluub waa sharciyeysan yahay si sharci u saaran tahay company X la yiraahdo oo dawladda Soomaaliya ay sharciyad siisay oo amniga ka shaqeeyo oo security ah u shaqeeya oo wuxuu ilaaliyaa meesha taagan qoriyo haysta hajiraano kuwaas oo dhan dawlad goboleedyada hajiraano dibadda hajiraano maamulka dawladda dhexe joogan waa sidaas kuwaas qoroga ay ku nool yihiin laakiin waa sharciyeysan yahay dawladda Soomaaliya waa hay'adda dalkan waxa ka jira ee ugu shaqaaleyn badan dadka ugu badan dalkan waxay u shaqeeyaan dawladda laakiin haddana nisbadaas iyo nisba u dhow dawladdu ma shaqaaleyn karto boqolaal milyan ay gaarayeen dadka noocaas dawladdu ma wada shaqaaleyn karto intii dawladdu shaqaaleysay intii maxaan ku raadin ganacsatada shirkadaha private-ka hay'adahan dawladda lukulo sharciyad ka helay ay shaqaaleeyeen lama rabe intii kala xagee jirtaa intii kala xagee jirtaa shabaab u shaqeeya qaarkood shabaab u shaqeeya qaarkiis bish aakhirkeeda shabaab oo muxuu ahaa $50 ama $70 ama $100 u siiya qoriga ku nool yahay hadana noloshiisa kii meesha uu joogo shabaab aanu ka jirin ama ba damiirkiisa iyo dadnimadiisa ay siin weyda shabaab inuu aado xagee jira burcad badeed uu aado burcad badeed aadida hadana maxay tahay waa qoriga ku noolaa qoriga aakaa ku noolaa kii damiirkiisa sii waayay inuu burcad badeed aado intee aaday intuu ka lugeeyay Ethiopia dardaray Suudaan uu sii dardaray Liibiya oo qarax iyo madaafiic la isla dhacay oo dhaxmaray badda Mediterranean ku fatax ku yiri shanay ahayn saddex laba desertiga lama degaan ku sii dhimatay labadii kalena badda Mediterranean ka doonta kula qaraqatay ku dhigay halkii u dambeeyay Lampedusa u tagay in badan oo kuwaas ka midar meesha sii jira waxa maanta aan marka u baahanahay waxay tahay duruufaha sidaas ah oo dalkeena dhalinyaradeen ay ku sugan tahay hadaanan daaweynin shabaab kuma layn karno inaan soo dilno inaan soo xirxirno waxaan ku layn karnaa dhalinyarada aadis inaan ka celino dhalinyarada shabaab u dagaalanto dhanna caqiidada shabaab ma wada aaminsana caqiidada shabaab uu aaminsan yahay ee isqarxinta ma aaminsana kuwa amiirada iyo amniyaadka ah iyo kuwa isqaraxa loo soo diraa aaminsana kuwa dagaalamo oo ciidamada ah oo meelaha ku duulay ma aaminsana caqiidada intooda badan waxa ku kalifay duruuftaas gaarka ah waxaan rabaa marka wiilkaas iyo gabadhaas saas ah inaan idin sheego marka maxaa ku kalifayo hadda ka horna waa ka dhawaaji wiilkii gabadhii 5 sano jirtay ama jiray 1990 maanta 30 sano jira 5 sano waa da'da iskoolka lagu aado waa maanta 30 sano jira ama ay jirtaa gabadhaas waxay u badan yahay wiilkaas ama gabadhaas inuu xaas yahay oo caruur uu leeyahay wiilkiis iskool ma tagin meel xirfad lagu barta ma tagin meel maxaan ku raay fursad kale ma haysto baadiyo tuulo ku taalo ku nool yahay maxaa diiday marka hadii xaqqiga oo maxaa ku dhacay ilmaha galaas caana uma gada kartid miyaha soo bax bish aakhirkeeda $100 soo tuuraysa maxaa hooyada aabba maxaaskaaga soo bax shabaab u aaday war maxaa ku dhacay masaana tahay soo bax bisha dambe guriga yarka carishka ama aqalkan hooriga aad degan tahay boorso $100 ku jirta soo dhaxdhigaysa ay baabilkii kale la joog fiirim sawiradood cidda muxuu ahaay xoga yar iisoo waxay dheh badan waa soconayna waa tacaburayna waa maxaynina dhalinyarada duruuftaas ku sugnayd dadka noocaas ah ka faa'iido kuwa dhahayo masawirada tusay waa kuwa baxaya ma waa kuwa dalaaliin oo beledkan joogo ka ganacsado oo saas nool wiilkaas inuu desert ku dhinta ama gabadhaasi ay badda ku dhimata ka ganacsanaya waa dadku markay nuglaadaan qofku markuu nuglaado immunity-giisa oo hoos u dhaco cudur kasta ku dhaca dadkeenu markay nuglaadeen oo siyaasadda xaggeeda ay ka nuglaadeen cudur kasta iyo burcad kasta iyo tuug kasta yaan u nuglaanay oo aanu waxaynayna duruufta maanta dhalinyaradeen ay ku sugan tahay waa saas sida kaliya ee marka mushkiladaas maxaa xal u ah mushkiladaas waxa xal u ah inaan
dowladnimo inaan keeno dalka inaan amni ku soo celino fursado shaqada inaan abuuro fursadaha shaqada marka dhibka kale leeyihiin maanta hoteelada tagtaan supermarketyada tagtaan meelaha qaarkood yarka warshadaha yarka ka jiraan tagtaan yaa ka shaqeeya hoteelada yaa ka shaqeeya managers yaa ka ah cook yaa ka ah kushinka ku jiro meelaha qaarkood yaa muxuu ka adeega waiter yaa ka kabaliyeen oo raashinka ku keen muga fadhiisat dad ajnabi ah maxaa yeelay ninkan ganacsatada ganacsigiisa inuu qurxoonaadu raa Soomaali shaqada u qaban karo waay dadkeena maanta hadaan shaqo abuurno dhaano wada 1 kilomitir ah dhismaheeda la bilaabay shaqaalaha yimaado annay shaqeyn karin shaqada dhamaanteed xoog kuma salaysan iyo bulkeetigan qaada inta dhiga dhagaxan qaad iyo muxuu ahaa dambiishan muxuu ahaa loorkan xamaad kuma salaysan aqoonta korontada microphone-kan saacadna hadii iga fariisto telefoonkaada mobilka haduu fariisto birtan in lagu alxam hadaarj podiumkan in loo sameeyo oo maxaan ku leeyahay alwaax looga sameeyo dhammaan aqoon u baahanta xirfad u baahanta dadkeena xirfad ma laha adduunyaduna waxyaabaha inoo qaba kartay kamid tahay laakiin maxaan leeyahay hadda meesha ma imaan karno amniyan ka baqaynaa sayana amni daraan ka baqaynaa sayana arinta amnigana waxay u baahan tahay waxyaabihii aan maanta oo dhan aan ku celcelinayay oo aan ka hadlayay mar kale waxaan rabaa in aan muxuu ahaay aad iyo aad ugu mahad celiyo baarlamaanka federaalka ee sharafta leh ee fursadaad inaan intaan idin soo hor istaagay idin waxeeyo idin la wadaago xaaladda guud iyo masawirka guud ee dalka aan idin la wadaago dalkeenu yaanan fulaga iyo kan Soomaali nacaybka qaba kan dawlad nacaybka qaba kan dawladda ka cabsanayo kan nabadda ka cabsanayo waxa uu noo sheegayaa sax ma ah waa la hoogay waa la dhacay waa la balanbalay intay karbooday xaggay ka soo dhacday wax ka jira ma jiraan wax badan oo u baahanahay ummadeen u baahantahay annaguna inaan aragnaa u baahanahay oo ah maxasan kii samay ah waa naga maqan yihiin ma dafireen inaan 100% perfect sax aan nahayna kuma doodayno laakiin inaan horumar sameeyo waayno oo aan soconno oo aan sii soconno ku doodaynaa waana sameynaa dhaqaalaha aad soo gaarto dad badan inay ka cabanayaan magaalada beesada ku yaraatay dhaqaalihi hoos u dhacay kan waxism harba inaa idin sheego 20 iyo dhowr sano waxaan ku soo nooleyn dhaqaalaheenu ma qaabeysnayn ma habeysnayn nidaam iyo maxaan ku raadayay wax la garanay kuma saleysnayn aan keen isbedel aan keenna dhahna marka oo wixii aan nidaamino shuruuc aan u yeelno hay'ada aan u yeelno wixii marka xoogaa way adkaanayaan waxyaalo badan oo cilada ah way soo baxayaan meelo badan muxuu ahaa sida wax loo heli jiray aan looga helay ama dadkii heli jiray aan ay helayna dadka duwan ay helayaan waxaas marka keenayo laakiin dhibaato ma jirto guud ahaan dadka dalka dhaqaalihiisu ka horay u socda amni darrada dhaqaale darrada in waa isuga guud laakiin waxyaabaha aasaaska aan u lahayn sana 2 sano 3 sano ka hor maalintan imaanayna ee maanta mooska Soomaaliya laga dhoofiyaa tir ahaan waa kala badan yahay xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyaa tir ahaan waa kala badan yihiin sisinta iyo khayraadka kale ee Soomaaliya laga dhoofiyaana way kala badan yihiin waxa gudaha dalka ka sameysmayo oo soo noqonaya waa badan yihiin laakiin wax badan oo dhaqaalaheena isbedel degdeg ku sameey lahaa way naga maqan yihiin 2014 2015 tirkoobkeedii wili lama soo saarin 2014 5 milyan oo neef ayaa Soomaaliya laga dhoofiyay xoolo nool dib badan ku qabnaa xoolaha nool wadidooda hayntooda dhiigga qaadkan waa jiran yahay markabka dhan hal celiyo dib badan loo qaba sida si ugu maslaxad badan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka maxuu noqonaa dhaqaalaha ugu badan looga helaa 5 milyan inta la gowraco oo la bireeyo hilibkooda la qaboojiyo aan dirno oo hilib asoo aan dirno meeqa qofooda shaqo ka helayso warshadahaas 5 milyan oo maqaar oo soo baxdo oo aan warshada inta u sameeyno aan habayno oo aan ama maqaar asoo iib geysano ama asoo kabo iyo suul iyo boorso iyo maxaan ku iraahdaa aan adduunyada u iib geysano raafka xoolaha iyo lafta iyo wax inaan muxuu ahay galuusyada badhamadan iyo waxaan oo dhan intaan sameeyno adduunyada Ilaahay inaan u dirsan waxaas maanta Soomaaliya duruufo ay ku jirtahay dhaqaalana waa u baahan yihiin aqoonna waa u baahan yihiin labadiba waa naga maqan yihiin laakiin dhaqaale aqoonta waxaan heli karnay kamid yihiin
حال يري هبار دمانتي سنة وحكسو أورورا يا دمو دعاء دمانتي ندورو حاجة دي نقدر وحكسو أورورا يسا سياسة دا أنتوسين سياسة دا أنتوسين ونكوهشين ونسلا قرنو ووحي ما أنت أنو صورت قلعين أنك دول قادنو وأنك قمويون ورؤوس عنو وحي نو صورت قلعين سميسانو وحكا لو دن وانو هيد قلعين دقالة وانو كحا أمني وانو صبا وحان لينو دن وهيدين مركالي وحان سيقارة ووسو جيدين يا ولا لها أقلك بارلمانك فدرالك الصومالي دولة دسدة دولة ودقن دقن كنا انت بدل لما برتو اسكول لما برتو انت بدل أركضو كوي ماذا إلا أركو يكو دايس لغو دايس دو كوي ماذا مد حير حيران هدي تلفزيون كلا أركو ضد إبريس حير حيرا والغو دايسانا مد محاكو راي سروال كمحوها هاي قابصدي هدي الأركو كوا كلان وحي لو قابصدي حتى أنشقا كلا يرى الله قابصدي هاي بي بقري نقولي مالين تدبي dhaqanka dawladnimaduna kaas uu kamid yahay dhaqan ay u baahan tahay dhaqankii inaan مثال inaan u noqono role model muunad lagu daysado oo la eego oo fiicnaanta looga daysado inaan noqono waa maxay waxa ugu horeeyo qawaaniinta u baahannahay inaan dejino ku dhaqankeedana aan hor kacno qofka su'aal gelinaya ee carqaladeynaya aan dhaan ka joog saana loogu dhaqmo ومدة شيء ورا عسكري ده سفعن ولا هذا قف كي عسكري سفعن ولا هذا عسكري ده سيدي ساحشوني اسبدلي مسؤولية دريمي احترام دريمي ورا عسكري سنة ولا هذا مد عسكري كقيلنا يا مقاتل ورا عسكري سنة ولا هذا سفعن ولا هذا عسكري مركات تراد هم حدا ده أنا حد بان أنا هي سفعن ولا هذا ورا عسكري هذا تراد عسكري هنا محو هاي واسبدلي كاسنا واسبدلي مركا عن نقلنا قوة الدولة دمدا دقن كدولة دمدا مورال ونقضة حرب أنا كسوق جبجبيو أرنتي أو قدوميها برلمان كسوق جديد ديارا ندين أي عوائي عصر مركي برلمانك دمانتيس قديس جوكتدا حبنا برلمانك كتر سنة إسلا صعداي أي بعضان ديارا وهاي مال كستو يجو بعضان إن أوتلان ديار واه أما يجي ماذا آدي آدم تاسو عدينا قدومية وقتك أديك أمبان نصو قبض دونه وقتك أد نصو قبضتنا أنا ولا هي اللي أدي اللي رادو وأنا هلينا وحنا كهلينا طبعا مصلحة عام كاه طبعا مصلحة جارة طبعا ما هين أول كم هذي جرنا هذا كم هذا دون آدي آدم مركل إذا كم هذا علينا وأنا إذن بوجادنا يا رنتي وإذن بوجادنا يا هوش أتقبضتين أدو دبر أديكتين ظروفها أدك oo aad ku dulqaadateen oo aad ku adkaysateen shacabka Soomaaliyeedna amaano idinku haya waana ku amaanintiin wixii khaladaad oo naga dhacana waa saxayna hadii la yiraahdo midii aan kor soo sheegi karno kor soo sheegayna wixii aan hoos soo sheegi karno soo sheegayna la kor soo sheegayna hadii la yiraahdo aad uma santiin mar kale 100% wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh معسكرين كلن كان عادي جينا سدحات وينو حرية هاي بريتونو حلي بانو بريتو واجرا شركة